qaar ka mid ah odayaasha degmada Ari Cadeeye oo ay weheliyaan ehelada oday Maxamed Ibrahim Muuse oo maalmo ka hor lagu xidhay magaalada Hargeysa ayaa ka hadlay xarigaasi. odayaashaasi ayaa sheegay in xariga loo geystay oday Ibrahim Maxamed Muuse uu yahay mid aan cadaalad ahayn, waxayna ku baaqeen in xorriyadiisa dib loogu soo celiyo si degdegana loo sii daayo. odayaashaasi waxay tilmaameen in xariga loo geystay oday Ibrahim Maxamed Muuse uu salka ku hayo sida ay sheegeen arrimo la xidhiidha. haddii aan nahay odayaasha beesha Ari Cadeeye saaka waxaan mushtari ka nahay oo ka xunnahay ninka odayga ah ee labadii wiil adeerka u ahaa la dilay ee ay u dhaxaysay labada bilood iyadoo oo aan gar iyo garawshteen la siin haddana saaka la xidhay. waa ayandaro sharci maaha, dhibane wixiisa loo doono wixii ku khaldamay laga xaqsiyo looga xaqooyo baan arki jiray, laakiin maanu arag dhibane la sii xidho oo dhib kale loo sii geysto. dowladda Soomaaliya waxaan ku codsanaynaa oo u sheegaynaa odayga dhibanaha ah Hurre Maxamed Muuse ee labadii wiil adeerka u ahaa isku goobta lagu dilay ee ilaa iyo hadda gar iyo garashteen la marin ee waxba loogu aanayn ee waxba loogu xidhin ee waxba loogu qaban ee haddana isagii saaka uu xidhay yahay. Soomaaliya waxaanu ka codsanaynaa in xorriyadiisa loo sii daayo odayga dhibanaha ah ee aan waxba geysan eragiisii la laayay ee kuwii laayay ag joogaan. waxaanu kaloo sheegaynaa Cabdi Fataax Axmed salaad waa gacan ku dhig leh, lama sii dayn karo ninkii sii daaya dambiga isaga qaba wixii meesha ka yimaada isaga korkiisa tahay. dowladda Soomaaliya waxaan ka codsanaynaa ninkaas waa gacan ku dhig leh, labadii nin kalena in naloo doono naloo soo qabto haddii xal la doonayo weeye. haddii aan xal la doonayn dee hal isku sii daayo weeye. taa markaa ka gudbo arrinta tan iyo falka kan iyo khasaaraha kan iyo dhibaatada tan annaga meel bay naga haysataa. haddaanu qoyska nahay dhibaatada waxay naga haysataa mas-uulka nooca ee dowladda reer Somaliland ay siisay deejada ee ah wasiirku waa inuu yahay cadaali, waa inuu yahay xaqsoor, waa inuu ummadda u siman yahay, waa inuu dhexdhexaad noqdaa, waa inuu kii gardaran qabtaa, kii khaldanna kii saxana saxiisiya. waxay annaga naga socotaa waa xaggiisa. isagaa xidhay odaygan, isagaa nimankan noo soo qaban waayey, isagaa saxaafaddana waxay jiraan ay ku hadlayaan ka dambeeya. Nuuraddiin Faarax buu ka mid ahaa. midda labaad wuxuu ahaa Maxamed Axmed Warsame. ninka saddexaad Siciid Saleebaan Shire. saddexdaa nin waa gacan ku dhig leh, waa nimankii dilay Sakariye Nuuraddiin. waanu ka wada hadalay, noo soo qabtaanu nidhi waxay noola yimaadeen masaalaxo. waanu ka yeelnay, waanu qaadanay, waxaanu dabcan inaanu heshiinno oo la heshiinno oo siday ahaan jirtay ka gar qaadanno. nin dhintay waxba ma gooyo dhimay. waxa wax laga qabtaa wixii markaa xal ah. xal baanu doonnay, waanu la qaadanay waxay noola yimaadeen. heshiis baanu gallay, heshiiskii aanu gallay oo noo socda laakiin aanaan wax markaa na kala gaari jirin ayaa waxay barabaraha laascaanood ku dileen adeerkii bile bay suuqa bartamiisa ku dileen. boonka iyagaa jabiyey, heshiiska iyagaa jabiyey, talada iyagaa jabiyey. waxaanu la wadaagno maaha. ninkaa dilay waa la qabtay, waana xidhan yahay, waa la ogyahay. noo soo qabtaanu nidhi nimankaa waa la soo qaban waaye, waana loo soo qaban waaye. haddii odaygii dhibanaha helay gacan dhiiglii wiilkiisa dilay
uu qabsaday waxa weeye sharciga islaamka iyo kagaaladaba in loo qabto lagana xaqsiyo isaga baa la xidhay sharcigaas waa mid xagee ka yimi sharci gaala maaha sharci muslimna maaha waxaanu isu leenahay dowladda soomaaliya arrintaa ha ka noqoto odayga madax bannaanadiisa ha loo sii daayo ninkaasuna waa baan saa kale ku xidhan Hargeysa kuna jira sheelo laba habeen uguna xidhan xaq darro waxaana xarigiisaas sababay markii uu qabtay gacan ku dhiigle Cabdifataax Axmed Salaad oo ka qayb qaatay dilkiisa kaliya Nuuruddin Faarax Dheere saga iyo Maxamed Axmed Warsame oo maqan oo ninka labaada ninka saddexaad waxa weeye waa Siciid Salabaan Shire wuxuu ku xidhan yahay xabsiga dhexe ninka hore sakariyana waxbuu ka dilay ninkii dambe ee bila sugulana waa ninkii dilay isaga walaalkii xabsiga dhexe ku xidhay hadda waxa ninka suldaanka ee xidhan ee madluubka ee ragiisa leeyahay loo xidhay maxaa ninkan gacan ku dhiglaha u qabat ninka gacan ku dhiglaha waxa weeye waa gacan ku dhigle anigu waxaan nahay ehelkii rag laga laayay waxa weeye sakariyo Nuuruddin Faarax Dheere saddex nin baa dilay beesha waan wada hadalay waxay yiraahdeen saddexda nin baa gacanta leh nin kuma cadeyn karno waan wada hadalay nimanka noo soo qabtaan ku niiri soo qaban karnay bay yiraahdeen markaan wada hadalay saddexda nin baa ninka sakariyo uu ku cadaaday dilkiisu markii aan wada hadalay heshiiska wada galay heshiiskii oo aan meeshiisii yaala oo aan waxba aan laga qaadan waxana aan go'aan laga gaarin baa waxa lagu dilay bartamaha magaalada bila sugulle Maxamed Muuse oo aan sagana adeer u ahay wiilka horena awoobaan u ahaa bartamaha magaalada lagu dilay sabab la'aan loo dilay isagoo shibilo oo meel iska fadhiya maqaaxi ka shaahaya la dilay labada nin waxa dilay hadda jeelka ku xidhan ma hore kabacdina waxa weeye harbay hayd duhur bay hayd way carareen annaga soo qabsanay maamulkan la kaashanay annaga maamulkan oo kaashanay baanu soo qabanay iyagu nooma soo qaban waxaanu markaa u sheegaynaa waxa weeye ninka hadeer xidhan ee la hayo ee ninka madluubka loo xidhay Cabdifataax waa gacan ku dhiigle waa lambar 1 ka kale waa nin maqan oo sagana la yiraahdo Maxamed Axmed Warsame waa gacan ku dhiiglaha labaad gacan ku dhiiglii saddexaad waa ninka jeelka weyn ku xidhan ee sakariyana dilkiisa ka qayb qaatay waxaanu u sheegaynaa dowladda Soomaaliland madaxweynaha Muuse Biixi iyo wasiirka arrimaha gudaha haddii nabadgelyo meesha laga doonayo gacan ku dhiiglaha ayaana la ka sii day waxa weeye dilkii halkiisii uu sii socday waxa weeyaan heshiiskaas iyaga buriyay iyagoona waxba aan kala qaadan oo ay 2 bilood ay arrintii dilkii hore ka joogo bay bartamaha magaalada ku dilaan bila sugulle 12 xabadood ku dhufteen ma garatay waxa weeyaan marka haddaan anagu nahay ehelkii waxaan u cadeynaa cid kastoona maqlaysa inaan heshiis kama xidhna heshiisku waxa weeye waqti buu leeyahay iyaga buriyay markay kii horena soo qaban waayeen kii dambe adeerkiina dileen soo madaya labada wiil madaya way agooma heshiis aan jira ma jiro heshiiskaas wuu jiray laakiin iyaga buriyay 10 jeer bay ka hadleen idaacadaha meel walba ka hadleen miidiyaha ka hadleen anagu ma aanan jawaabin waxa weeye waxaan maanta nagu kaliftay maadaama aanu dhibananayo 10 jeerna la waxeeyay inaan adduunka iyo dadkaba u cadayno in arrintaas ay Faarax Cali gardarada cad leeyihiin dilkii dambe ee dhacay ee ninkii wadaadka ahaa Cabdinaasir Umar Shaacir lagu dilay waxa way ragii dilay waanu soo qabanay iyagu nooma soo qaban wulul baan ka soo qabanay annagoo Soomaaliland ciidanka kaashanay annaga qabiilhaan annaga reecin annaga soo qabanay halkaas ay ku xidhan yihiin waxa weeye nin gacan ku dhiiglaana xidhnaan maayo qaarna suuqa mari maayaan waxaan markaa dawladda ka codsanaa ninka hadda xidhan ee gacan ku dhiiglaha ee ninka madluubka loo xidhay xidhan gacan ku dhiiglaha in loo hayo